dad badan waxay ka cawdaan marka ay xanuun ku yimaado ama jir ay ku timaado waxay u baahan yihiin ducadii ay ilaahay ku bari lahaayeen ama ilaahay uu kaga dulqaadi lahaa biidnillaahi jalla wa ala xanuunkaas ama cudurka ku yimi haddaba insha Allah ta'ala maanta waxaan idin soo gudbinayaa duco rasuulku ina amray salawaatullaahi wasalaamu calayhi lagu ducaysto yaqiinna aad la timaado oo aad ilaahay ku kalsoonaato biidnillaahi jalla wa ala xanuun kasta oo ku hayana aad ilaahay kugu shaafinayo idanka ilaahay ducadaas waxa weeye nin kamid ah asxaabta rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo soo islaamay ayaa nabiga u yimi markaas wuxuu yiri yaa rasuulallah waxaan ka cabanayaa xanuun buu ka cabinayay muddo ilaa intaan soo islaamay xanuunkaasi uu yahay nabigu markaa wuxuu amray arrintan inuu la yimaado meesha ku xanuunays ee aad ka jiran tahay ee ku damqanays ayaad gacanta saa u saaraysaa saddex jeer baad waxa dhahaysaa bismillaah mesela ka soo qaad caloosho kala ku xanuunays gacantaadii midigta ayaad saa u saaraysaa saddex jeer baad leedahay bismillaah 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 toddoba jeerna waxaad odhanaysaa أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر تضبط شربة دعاء اللي العلنية وفرصو ترادو يد اللفت كده وكاقب قادتها واي حديث وحديث صحيح مسلم كوكي لا نبي وحوري صدح شر بسم الله ده كنا مسح ماشي كحنون يسا داي علاشة تاي داي لقطة تاي داي قعنطة تاي داي ملحة تاي صدح شر قعنط هذا كو مسح او بسم الله بسم الله بسم الله ده اسم كإلهي كبلو تضبط شر نوحة الأهضار أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر معناه دون أي تاي وحن إلهي كما جنجليا عزيسي شرفتيسي أوديسا شركة أن نفط إذا كهلي والشركة النفط إذا كهلي سعودك هو شروي وواحدة شرع مها خير مركا الشركة سد إلهي كهوس كليسا إلهي كان مركا وحوين وكابد باديو الهوس كليسا مركا الدعاء أساد كدو عيسان إساء تضبط شاب وحكلو مهمة وفي رصد ولا ليا تضبطا أذكارته ويا أخيان تضبطا معوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بأخريان تضبطا آية الكرسي ذوي أخريان قرآن إيه آيات فربطا إيه رقية بطا بيسكوت الفان مع ذلك هذا نمي داوبان سببته هو محمي أسباب بدن إيه جرت علماء مركز الشيء الدعاء مركز لقى والرمي واحد تصالوا سوقاتان سيدا اللاب كي قانصدا مركز لطوريو لاب كسوميدا أركين قانصدا واحد لهذا حرق أسأل الجليا اللاب marka leebka hadii xarigu uu yahay xarig adag qaansada marka saa leebka u tuurto leebku meel fog buu ku dhacayaa laakiin xarigu haduu ka dabacsan yahay teeb waxa weeyaan leebkii yaraa ama waxa way falaadhi aad tuurtay halkan dhow bay ku dhacaysa sida awadeed culimadu waxay sheegeen qofka marka uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ducada uu ka aqbalayo waxa looga baahan yahay yaqiin ayaa muhiim inuu waxaan rubaysan yahay inuu bariyo rabbi isaga maqlaya oo ajiibaya oo u jeeda oo dhibtiisa og oo dhibta ka qaban kara wayna qalbiga kugu jirtaa hadii shaki kugu jiro warna ducada intaas jeer baad bariday xol laga aqbali maayo wax noocaas hadii qalbiga ku jiraan waxa weeye ducadii sidii loo aqbalaa way adkaanaysaa marka horta waxa laga rabaa inaad yaqiin la timaado oo aad ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoo huba aad hor istaagto oo aad ilaahay barido ku kalsoonaato ogsoonaata ducadaadaas in ilaahay ku aqbalayo jawaab sax ah oo waafiya uu ku siinayo biidnillaahi jalla wa ala waxa weeye ducadaada waa la aqbalay waa maqbuula biidnillaah sida ku ducayso ilaahayna qof kasto bukaan oo xanuunsanaya mid bukaan socday mid bukaan jiifaba Allah daawiyo ilaahayna ha shaafiyo sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad